Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Soo dhawaada asxaabta. Aad ugu faraxsanahay insha Allah habeen kale oo cusub inay noo dhashaan. Aan rajeynayna hadduu Ilaahay yiraahdo maalmo yar oo kooban kadib in bishii barakeysnayd ee Ramadaan ay noo dhalan doonto ee sanadka 2020ka. Taxanihin inoo soo socday ee barashada suuqa sarifka lacagaha qalaad ayaan in muddo soo wadnay. Qeybaha aan dhexda kaga jirnana waa qeybaha dhexe ee loo yaqaan basic-ga. la rabo qofka in uu wax badan uu ka fahmo si uu u noqdo ganacsade ka ganacsada suuqan sarifka lacagaha qalaad isagoo jooga meel walba oo caalamka kamid ah si marka qofka uu u noqdo ganacsade suuqan ka ganacsada waxyaabaha uu u baahan yahay intooda badan aan ka soo sheekeynay qaybta ugu sii gaarka ah ee caawa miiska noo saaran waan qaybteennii aan xalay soo bilownay ee ah brokerka muxuu yahay muxuu qabtaa qofka ganacsadaha ah ee suuqan ka ganacsada brokerka muxuu uga baahan yahay oo ah idana wax aad muhiim u ah okay so barashada marka suuqa sarifka lacagaha qalaad qeybaha maanta hadduu Ilaahay yiraahdo aan ku baran doono waxa kamid ah waxa loo yaqaano spreadka bid iyo ask maxay yihiin leverage muxuu yahay security-ga oo ah asagana sidoo kaleeto amniga brokerka oo aad muhiim u ah transaction costs waxa la dhaho oo af Soomaali noqonayso qiimaha macaamilka iyo deposit and withdrawal oo ayadana loo yaqaano dhigasho ama kala bixid sidoo kale trading platform jiro oo asagana ah qalabka ganacsiga oo anaga nooca hadda aan isticmaalno loo yaqaano MetaTrader 4 noocyo kale oo badan jiro broker badan waxa jira ayaga sameysteen platform u gaar ah sidoo kale waxyaabaha aan rabno inaan caawa barano kamid yahay hadduu Ilaahay yiraahdo iyo qaybta ugu muhiimsan oo ah customer service oo ah adeega macaamiisha oo taasna aad muhiim u tahay sababtoo ah waa meesha markay wax dhacaan ama cilad kula soo daristo ama muxuu ahaa ii sheeg wax un si noqdaan laga caawin lahay idana in ay heshidna ay muhiim ay tahay okay so waxaan sameynaynaa marka qaybteena aan ku bilaabano marka kow waa maxay marka spread marka suuqan forex la joogo su'aalaha ugu badan ee imaan kara waxay yihiin marka spread iyo hadallo badan oo dhigahada ku soo dhacayo ama maqlaysid babes waxaa jiro saan si marka wixii uga jahil baxdid ee u baratid sababtaas darteeda marka waxaan u diyaarinaa cashirkan una rabnaa hadduu Ilaahay yiraahdo marka suuqan xubin aad ka noqotid oo ku soo biirtid in aad fahantid oo aad taqaanid waxaan marka aad ku aragtid suuqan gudihiisa waxa ay yihiin okay dilaaliyaasha forex ayaa soo xigta laba qiime oo kala duwan oo loogu talagalay laba iibka iyo qiimaha weydiimaha Soomaaligaas ma adka u maleynaa ina fahanteen rajeynaa sababtoo ah lacagta marka suuqa forex la joogo waxaan isticmaalnaa laba wada midkood inaan lacag soo gadano lacagta kalena iska gadno ama inaan lacag iska gadno oo lacagta kale soo gadano oo suuqa marka la joogo loo yaqaano sell iyo buy okay nooca faafida ee aad ku arki doontid marka dusha sare ee ganacsiga waxay ku xiran tahay dilaalinta forex iyo sida ay lacag u sameeyaan waxaa jira laba nooc oo fiditaan ah kow nooca koowaad waa wax go'an oo aan dhaqaaqaynin oo isbedelaynin iyo nooca labaad oo ah isbedelid oo sidoo kale loo yaqaano sabayn wax aan fadhinin oo macnaha marba meel taagan tusaale marka si aad u fahantiin dhanka bidig waxaan u soo qaatay sawir ka bixinayo muuqaal guud si qofka uu u fahmo spreadka iyo sida xaaladiisu ay tahay iyo sida uu u shaqeeyo waxaa jira marka laba nooc oo spread ah sawirka hoose si fiican u fiiri nooca koowaad waxaa loo yaqaanaa fixed spread iyo nooca labaad oo asina loo yaqaano variable spread oo ah macnaha labadii hadda aan ka soo sheekeynay noocna waa nooc go'an oo istaagsan oo aan meelna u dhaqaaqaynin noocna waa nooc isbedbedela mar isku soo dhawaada mar kala dheeraada mar sii fida waliba noocan dambe ee variable-ka waxay badanaa brokeradu isticmaalaan marka suuq news ka soo bixi rabo ee suuqaas dad badan ay ku jiraan ama ay rabaa inay soo galaan si markaasi qofkii soo galayna looga helo bibs fara badan kan soo gali doonana looga qaato lacag fara badan waxay sameeyaan spreadka la dhaqaajiya oo noocii aan soo baranay habeen horeeto waxaa kamid ahayd wide spread oo ah in spreadka la fidiyo oo la balaariyo marka waxaa la rabaa inaad ugu talagashid laba nooc oo spread ah in ay jirto marka aad joogtid suuqa forex-ka oo nooca koowaad loo yaqaano fixed spread iyo sidoo kaleeto nooca labaad oo asna loo yaqaano variable spread oo weliba noocan koowaad ee hore waa nooca jaango-an ee aan isbedelin nooca labaadna waa nooca sabeeya ee isbedela marba meel taga sababtoo ah taas macnaheedu waxaa ku arkaysaa lacag markii aad soo gashid MetaTrader 4 markaad joogtid inteena badan waxaan isticmaalnaa aniga platformka loo yaqaano MetaTrader 4
MetaTrader 4 marka aad joogtid ee lacag walbo ay shaashadaada kaaga soo muuqato fiiri lacagtaasi hoosteeda waxaa ku qoran spreadka ama qiimaha loogu talagalay marka aad lacagtaasi inaad gashid meesha aad ka gadanaysid meesha lacagtaasi sell iyo buygeeda qiimaha u dhaxeeyo ee adiga laga rabo inaad bixisid ganacsadaha suuqa ku jiro in uu bixiyo uu brokerku faa'iido laga rabo mar walba way isbedbedeshaa intooda badan waxaa laga yaabaa lacagta markaa gelaysa inay ku qoran tahay tusaale ahaan spread 10 ah daqiiqada markay ka soo wareegtana ay 15 gaarto isla markaas daqiiqada lagu jiro gudaheeda waxaa dhici karta inay isbedbedesho noocaasna waxaa loo yaqaanaa noocan variable-ka oo aan fadhinin oo mar walba sabeeya taasoo keeni karta xataa mararka qaar inay kugu dalacaan oo spread aad u fara badan lagu saarto taasoo aan kasoo sheekeenay adoo trading view-ga ama aan dhahay MetaTrader 4 lacag ka galay lacagtaasna aa u jeedid inay buy u socoto suuqiina buy aa u raacday weli aa ku jirtid minus waxyaabaha keeni karan waxaa ka mid ah spreadka okay maxaa spread marka spread waxaa labada lacagood ee aad rabtid inaad midna gadatid midka kalena iska gedid waxaa lagu subi laba qiimo oo ah ask iyo bid oo ayadana aan ku arki doono qaybta labaad si aad u fahantidna koodii hore marka waxaan samaynaynaa qaybteeni labaad aan tagno meeshaana marka hadda aan u socdo waa inta bid iyo ask oo ah laba kelimad oo af English ah marka la macneeyana waxay noqonaysaa waa qiimaha aad ku iibin kartid sell lacagta asaasiga ah okay askna waa qiimaha aad ku iibsan karto lacagta asaasiga ah sideed caadiga ah marka laba lacag isgarab yaalaan waxaan suubinaa lacagna waa iibsanaa lacagna waa iska iibinaa ogow marka lacagta hore kuu soo horeyso marka aad sell u gelaysid waxa aad iibinaysaa tusaale euro waxaana iibsanaysaa dollar oo ah cagsiga lacagtaasi labadaas lacagood ama difference-ga u dhaxeeya kala duwanaanshaha tusaale aan soo qaatay marka sawirkan ka muuqda hortiina midna waxaa ku qoran bid midna waxaa ku qoran ask labadan marka waxaan rabaa cashirka qaybtii hore inaad ku fahantiin ee tan ka horeysay aan spreadka ugu sheekeynaynay bid iyo ask waxaa iigu kala qoran qiimo ah 1.2398 oo noqonayso marka gadaal laga tirinayo 398 oo ah bid qiimaha markaasi adiga muxuu ahaa ii sheeg aad ku iibin kartid lacagta isla dhinaceeda kale waxaa ku qoran qiimaha selka oo ah asagana 400 oo saddexda dambe markaan soo qaadano labadan number inta u dhaxeyso midna 398 uu yahay ask price-kana uu yahay 400 waxa u dhaxeeya kala duwanaanshiyo ah 299 iyo 400 ay ku dhamaanaysa labadaas difference u dhaxeyso labadaasi bib u dhaxeyso marka la joogo suuqan forex-ka waxaa loo yaqaanaa spreadka bid iyo ask marka la kala jaro qiimaha ka soo baxa waa spread inaad saas ila fahantiin ayaan rajeynaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo tusaalaha labaad oo asagana sawirkan dhinaca bidixda ka muuqda waa qiimo iska iibin ah iyo qiimo soo iibsasho ah qiimaha hoose ee bluega ah waa qiimo la iibsanayo qiimaha cagaan guduudka ahna waa qiimo la iska iibinayo tusaalaha marka hortaada ka muuqda si fiican u fiiri marka lacagtan marka aad iska iibinaysid waxaan soo sheegnay inay tahay bid marka aad iibsanaysidna in ay tahay ask haddii suuqan gudihiisa lagaa weydiiyo su'aalo noocaas oo kaleeto in aad u fahmi kartid bid iyo ask maxaa waa haddii lagu dhaho bid iyo ask waa marka la kala laisku daro labada lacagood tusaale ahaan marka Soomaaliya la joogo kaleeto suuqa sarifka waxaa la sameyn jiray dadkan waxaa yaqaano dukaamada sarifka ka shaqeeyo ama lacagaha soo qaato suuqa weyne bakaaraha joogi jiray oo kaleeto waxay suubiyaan qofka markuu lacag la yimaado dollar oo wato loo Soomaaliyeeyo oo shilin Soomaali la siiyo iyo marka asaga shilin Soomaali uu wato uu rabo dollar inuu qaato way kala duwan tahay isla taas qiyaasta iyo ama qaabkeeda u soo qaado bidka iyo ask waa noocaas waa gacanta koowaad iyo gacanta labaad haddaan soo gaabiyo tusaale kooban okay maxaa noo xiga marka leverage oo ah point aad muhiim u ah marka la joogo suuqa forex-ka brokeraduna ay ku kala duwan yihiin oo broker walba wuxuu bixiyaa leverage asaga u gooni ah ama noocyo ka mid ah leverage-da lagu ogol yahay qeexida leverage wuxuu awood u leeyahay inuu xakameeyo lacag aad u badan iyadoo aan la isticmaalin midkoodna ama aad u yaraynin ama aad u yaraynaynin lacagtaada isla markaana
aad amaahan karto inta soo hartay taasoo ah micnaheeda sida hadda badanaa culimadeena ay dhahaan waa xaaraan ama waxyaabaha qaar ay ka faalloodaan waxaa ka mid ah leveragekan lagu ilaalinaya awooddaada marka la joogo suuqan forexka tusaale sawirkan hadda inta hortiina ka muuqda standardka noocyadii aan soo kala baranay ee standard iyo mini iyo micro qofka markuu akoon standard uu haysto ee ugu jirto $100,000 marginkana sina qaybaha dambe aduu ilaahay aan ku baran doonaa leverageka ay ku siinayaan marka qoladan aad ka tirsan tahay brokerka waxaa ku ogaan kartaa qaybtan hoose fiiri waxaa jiro 2 jiro 10 jiro 51 101 251 jiro way kala duwan yihiin leverageda marka haddii adiga aa qaadatid leverage weyn macnaheedu waxay noqonaysaa in mar walba ay badan tahay awoodda difaacaaga tusaale haddaa rabtid inaad dagaal gashid adoo hal qori wato 10 nin oo qori wato diyaarsan ma dhexgeli kartid caqliyan markii xataa loo fiiriyo in qofka waxaa fiican mar walba ay awood ka dambeyso oo celin karta ay jirto leveragekana suuqan marka la joogo waa awooddii dhan ee suuqan kugu haynaysay ma aha lacag kaash laguu siinaayo ma aha lacag aad la soo bixi kartid waa lacag brokerku uu leeyahay oo loogu talagalay in qofka customerka ah lagu ilaaliyo awoodda ama suuqa uu ku jiro si uu ugu trade gareeyo lacaga waaweyn oo fara badan tusaale markaa haysatid $100 ee la rabo in aad ka trade garaysid suuq ay ku jirto intaasoo kun oo millions of billions of trillion lacag ah way adkaanaysaa marka boqolkaaga loo fiiriyo saas darteeda marka si qof walba uu xorriyad u helo uga shaqaysto brokeradu waxa ay sameeyeen leverage kala duwan oo suuqan markii la joogo loo yaqaano awoodda ama dhaqaajinta brokerka ay u sameeyaan customerkooda ama macaamiishooda waxaa sidoo kaleeto mawduucan daba socon doona hadduu ilaahay yiraahdo oo aan rabnaa inaan kusoo gabagabeeno qaybteena dambe habeen dambe margin oo asana ah point aad muhiim u ah laakiin aan rabin inaan caawa ka hadlo leverageka ayuu badanaa uu la socdaa oo ay is saameeyaan sababta aan uga soo tagayna waxay tahay mawduuc gooni ah asaga keligiisa mawduuc aad u dheer ah aan ka gudubno marka qaybteena securityga ama amniga brokerka waa mawduuc ayadana aad u muhiimsan astaamaha ugu horeeya ee ugu wanaagsan ee uu dilaalku ku wanaagsan yahay waa inuu leeyahay nabadgelyo sare kadib oo dhan macnaheedu waxay noqonaysaa wax walba marka laga soo tago waa in horta aad ku kalsoon tahay brokerkaas lacagta aad dhiganaysid kumanaan kun oo dollar gacanta u gelin doonin qof si fudud ugu andacoonaya inuu sharci yahay tabcan qof markaan ku dhaho waa sharciyeysanahay saana ahay qof hebel noocaasa ahay nin suuqi yaqaano qabiira ahay lacag ii keenso aan kugu trade garay markaan ku dhaho caddeyn kaloo intaas dhaafsiisan oo inta aniga aan kuu sheegay igama haysid laakiin qaybahan soo socdo waxaan ku baran doonaa sida loo xaqiijiyo marka qof noocaasa uu ku yiraahdo qof noocaasa ahay saana ahay waxaasaan qabtaa xaqiiqdiisa iyo dhabtiisa si aa ugu kala ogaatid nasiib wanaagse hubinta kalsoonida ganacsade ma ahan dhib aad u adag waxaa jira hay-ado sharci dejin oo adduunka oo dhan kala saara oo ah micnaheeda khiyaanadooda iyo muxuu ahaa isha kalsoonidooda in lagu kala saaro oo lagu dhaho broker hebel ma saxan yahay ma sharciyeysan yahay intee haddee wax dhacaan aan u raaci karaa taasoo qaybteena haddeertaan aan ku arki doono okay hoos waxaa ku qoran marka liiska wadamada leh hay-adaha sharciyeenta ee u dhigma heer qaran tanoo hadda aad muhiim u ah qof walbana la raba in uu ogaado mar alla markaa broker inaad geshid ama aad ku biirtid aad rabtid dalaalka suuqan waa inaa 6dan ama 7dan wadan ee hortaada ka muuqda in uu wadan ka mid uu ka garaysan yahay ama aad ogaan kartid wadanka adiga markaas aad ku sugan tahay tusaale bilmatal haddaa usoo qaato kow waa United States waxaa loo yaqaanaa National Futures Association oo marka lasoo gaabiyo loo yaqaano NFA and Community Futures Trading Commission oo ayadana sidoo kaleeto loo yaqaano CFTC waa tii Maraykanka nooca labaad oo ah ayadana United Kingdom UK ama Ingiriiska waxay leeyihiin ayagana sidoo kaleeto Financial Conduct Authority oo loo yaqaano FCA iyo sidoo kaleeto and Prudential Regulation Authority waasna marka lasoo gaabiyo loo yaqaano PRA qofka UK jooga ama Maraykan jooga marka uu rabo inuu broker qaato waa in uu galaa hay-adaha wadankaasi laga leeyahay si uu u ogaado brokerkan inuu yahay broker sharciyeysan tabcan lacag fara badan u dhiiban rabtaa lacagtaasina lacag sahlan ma aha mawduuca lacagtana hore uga soo sheekeynay waa riisiga aad u weyn la raba meesha ay galayso iyo meesha ay ku baxayso
in la ogaado isla sidoo kale waxaa jira marka Australia oo inta badan brokerada ugu badan ay ka diiwaan gashan yihiin Australian Securities and Investment Commission ajiro ayagana loo yaqaano ASIC marka la soo gaabiyo Switzerland oo aydan sidoo kale Swiss Federal Banking Commission loo yaqaano Germany oo ah wadanka hadda anaga aan joogno waxaa loo yaqaanaa aydan sidoo kale Bundesanstalt for Financial Dienst Leistungsaufsicht xogaa kelmadaas inay dhibtaan laga yaabaa u aqrinayo laakiin qofka Jarmalka yaqaan uu fahmi karaa oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano BaFin waxaa jira sidoo kale France waxaa jirta sidoo kale Canada muhiimadda marka aan rabo in uu qofka kala baxano waxay tahay hay'adaha noocan ah waxay ku damaanad qaadayaan ama ay ku siinayaan hubanti ah haddii brokerkaasi uu yahay broker sharciyeysan ay dhacdo even in lacagtaadii lagaala dhuunto ama dhibaato kale ay ku soo gaarto haddii aad joogto Jarmalka waxa u dacwoon kartaa qoladan BaFin loo yaqaano oo lacagtaadii waa lagu soo dhicnaa isla sidoo kale wadamada intooda badanna way leeyihiin suuqa forex marka la joogana waa muhiim in aad ogtahay brokerka aad lacagta u dhiibanaysid nooca uu yahay iyo meesha uu ka sharciyeysan yahay tusaalada oo soo qaato brokerkan hadda anaga isticmaalno FX Primus loo yaqaano wuxuu ka sharciyeysan yahay wadankan Australia xaruntiisana waxay ku taalaa Qobrus Yurubta bari qaybta Yurubta bari ka tirsan okay transaction cost qiimaha macaamilka marka qaybtan si kasta oo aad u tahay marka ganacsade ka ganacsada suuqan sarifka waxa qasab kugu ah jeclo ama necbo in aad lacag bixiso ama commission ahaan u bixi ama spread waxa mar walba qasab ah in aad lacag bixiso taas waa in qofku ku baraarugsanaada ee raba suuqa inuu ka ganacsado ama lacagtii ha lagu dhaho qaab spread ahaan ha lagu saarto ama commission ha lagaaga qaato ama ha lagu dhaho lacagtan habeenay barisay oo maalin iyadoo furneeda maalin kale cusub u dhalatay lacag ku bixi oo dulsaar ah ama lacag stop loss u suubin weysay ha lagaaga qaato oo lacag ziyada lagu soo saarto ama take profit ku furan lagu soo saarto suuqan forex-ka marka joogtid waxa qasab ah in aad lacag bixisid taas oo ayadana muxuu ahaa ii sheeg la rabo qofka ka shaqeysta suuqan forex-ka ah in uu ku baraarugsanaado so hal mar ku noqon qaybteen kale marka okay see marka lacagaha see loo bixiyaa waxaa ku bixin kartaa iyadoo average spread ah waxaa ku bixin kartaa iyadoo commission ah sidoo kaleeto iyo qaybahan hoose oo inta aan kugu soo qoray laakiin muhiimadda aan ugu soo daray waxay tahay waa inuu qofku ogaadaa ama uu fahmaa in mar walba lacaga laga qaadanayo suuqan in ay jiraan dhinaceeda kalena adigana aad ku faa'iidaysid suuqii aad lacag ka samayn kartid laakiin aad taqaanid dadka lacagta ka qaadayo in ay yihiin wax la isla ogyahay lacag go'an in aysan ahayn wax mar walba isbabedelayo oo dhaqaaqayo oo haddii hadda aan lacag inta furo commission $5 aan bixiyo haddana daqiiqada markay kasoo wareegato 5 laga qaadanayo aysan ahayn wax go'an oo la yaqaano in ay yihiin okay deposit and withdrawal waa pointiga ugu fiican ee meeshan ugu muhiimsan marka aan ka hadlayno dhigashada iyo kala bixida haddii aad broker lacag dhigato ee lacagtaadi lacag faa'iido ku dhasho waxa u baahan tahay tabcan inaad la soo baxdid lacagtaada inaad isticmaashid baahiyahaaga iyo noloshaada aad ku gudatid dalaalinta FX ee wanaagsan ayaa kuu ogolaanaya inaad lacag dhigato oo aad kala baxdo dakhliga ku soo gala oo aan dhib lahayn waa in xorriyadda xataa laftirkeeda aad heli kartid oo brokerka markaa lacag dhigatid oonan ku dhehaynin macnaha lacagtaadii maalin hebel iska kaa daba wareejinaynin oo waqti alla waqtiga u baahatid adiga xor ah u tahay oo kala bixi kartid ama aad lacag ku shuban kartid dalaalka suuqa runtii ma leh sabab ay kuugu adkeeyaan inaad ka laabato macaashkaaga sababta keliya ee ay lacagtaada ugu hayaan waa inay fududeyso ganacsiga suuqan aad u joogto ku ganacsanaysa inay kuu fududeeyaan oo iyadan laftirkooda ay kaa faa'iidayaan lacag brokerkaaga ayaa keliya u haysta lacagtaada si uu ganacsigaaga uga dhigo mid sahlan sidaa darteed ma jirto sabab aad ugu dhibaatooto inaad ku adkaato inaad hesho macaashka aad kasbatay oo lacagtii aad shaqaysatay u baahatid inaad kala soo baxdid brokerku waa inuu marka hubiyaa in habka bixitaanka uu yahay mid xawaare iyo xasiloon macaamilkana uu ku qanacsan yahay taasoo la raba iyada laftirkeeda in ay tahay inaad ogaatid mawduucaasi mid la heli karo ma yahay qaybtan trading platformka marka sida hadda aniga caadiga waxaan isticmaalnaa nooca loo yaqaano MetaTrader 4 oo ah qayb ka mid ah platformska loo isticmaalo suuqan sarifka lacagaha qalaad sidoo kaleetana xitaa waxaa ku jirto qayb stock marketka ah
marka laga hadlayo marka ganacsiga qadka tooska ah ee internetka waxqabadka ganacsiga badiyaa wuxuu ku dhacaa madal baayac mushtariyaasha taasoo micnaheedu waa in nidaamka ganacsiga ee ganacsaduhu inuu noqdaa mid ku habboon saaxiibtinimo oo degan tusaale marka adiga ku ganacsanaysid programka ay suubiyeen qoladan FX-ta ama MetaTrader 4 ha noqdo ama brokerada kale kuwa ay soo saaraan ha noqdo waxa u baahan tahay inaad ka heshid xog waxa u baahan tahay systemkaas inaad taqaanid oo fahansan tahay iyagana wixii macluumaad ah ay kula wadaagaan haddii lacag news ka soo baxay akhbaar cusub haddii suuqa kusoo ziyaaday qofkana inuu ku qanacsan yahay uu yahay system yar oo fudud oo la fahmi karo oo aan u baahnayn xisaabaad iyo waxyaabaha maskaxda qofka bini'aadanka ah kusoo noqon kara si waqti uu qaadato barashadeeda oo just 1 minute qofka hal daqiiqo uu ku baran karo markaad raadinayso marka dalaaliin had iyo jeer iska hubi waxa baraha ganacsiga ay kugu deeqaan ma ka heli kartaa warar bilaash ah sidee ugu sahlan qalabka farsamada iyo jaantusyada si fudud loo isticmaali karo ma ku soo bandhigaan dhammaan macluumaadka aad uga baahan tahay inaad si sax ah uga ganacsato suuqan sarifka lacagaha qalaad oo ah micnaheeda lacagihii aad geli lahayd meelihii aad ka geli lahayd isbareedkii inaad aragtid ugu yaraan system diyaarsan oo adiga aad fahmi kartid in uu ku hor yaallo oo akhrisan kartid noocyada sawirada hadda aan soo qaatay waa muxuu ahaa ii sheeg MetaTrader 4 iyo nooc kaleeto asna loo yaqaano Trading 212 iyo sidoo kaleeto noocyo kale oo fara badan ah jiro IQ option broker la jiro eToro broker la jiro ay waxooda qaas ay u subsadeen oo aan lahayn waxaba yaraatee MetaTrader 4 ah so qaybtii ugu dambeysay marka customer service-ka adeega macaamiisha qaybtan waa muhiim brokerada dalaaliintu kaamil waa kuma lihi oo ah micnaheeda kuma dhahayo micnaha way dhameystiran yihiin 100% waay oo markaa waa inaad doorataa qof dalaal ah oo aad si fudud ula xiriiri karto markay dhibaatooyin dhacaan kartida dilaalayaasha marka lala macaamilayo koontada ama arrimaha taageerada farsamada waxay la mid tahay muhiimadooda sida ay u leeyihiin fulinta xirfadaha oo ah micnaheeda haddii maanta cilad ay qabsato akoonka ii shaqayn waayo lacagteedii aan dalab ama order aan ku samayn karin isla marka waxaan u baahanaa marka inaan dalaalkii u noqdo cilladaasaa jirtay si wax ku xaliyaa waxba iga qaldanay maxaa marka aan samayn karaa in marka ay yihiin dad xirfadooda yaqaana ay ku heegan ah 24 hours maalmaha shaqadana ay ku diyaarsan yihiin in ay ku caawiyaan broker ama dalaal waxay noqon karaan marka kuwa naxariis leh oo caawiya inta lagu guda jiro nidaamka xisaabinta laakiin waxay leeyihiin kadib iibinta taageerada oo ah qofka inuu marka hore xubin ka noqdo ayaga uu ka tirsan yahay akoon loo suubiyo kadibna la siiyo nambaro u gooni ah si loo caawiyo markii uu u baahdo in la caawiyo soo qaybtan waa qaybta ugu muhiimsan waxyaabaha la rabana ay ka mid tahay in qofka uu ogaado marka uu isticmaalayo broker qaybteeni marka 11aad ee casharka taxanaha suuqa sarifka lacagaha qalaad intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo waxaan soo gaarnay qaybtii su'aalaha waxaan rajeynayaa intaas inaad wax badan ka fahanteen suuqaana mar walba iyo meel walba waxa uu kaaga baahan yahay joogteen iyo fahan iyo in aad ku celcelin badan samaysid waxa aan ka sheekeynayna mar walba waa see loo sameeyaa lacag mawduuca lacagtana ma aha wax sahal ah oo qof walba oo si fudud uu ku samayn karo ilaahi subxaanahu watacaalaana asaa ugu talagalaba nolosha adduunka in qofna taajir noqdo qofna faqri noqdo qofna dhibtoodo qofna dheefsado nolol kala duwan lagu kala noolaado haddana saas ee tahay micnaheedu ma ahan in ilaahay subxaanahu watacaala uu qof walba ugu talagalay culays oo sida aayad quraanka noo sheegayso culays waxaa ka dambeeya fudeed waxaan rajeynayaa inaysan wax walba idinla cuslaanin oo dhanka fudud laga fiiriyo suuqaana inta ugu horeyso waa kugu adkaan kartaa barashadiisa laakiin ma aha wax sii socon doona haddii aad joogtaysid oo wax badan ayaad ka fahmi doontaa hadduu ilaah yiraahdo inta aan ku kulmi doono casharka xiga hadduu ilaah yiraahdo waxaan idinkaga tegaa sidaas iyo nabadgelyo insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh